Jarmalka dal lagu maamulo dabeecadda dal salaanta qaar laga yaabo inaad ku mutaysato 3 sano xarig ah waxay ka soo baxday labadii dagaal ee adduunka si ay boorka isaga jafto uguna soo laabato nolosha dalka soo dhaweeya kumanaan qaxooti ah dadkiisuna ay la ildaran yihiin gabowga dhulka ay ka soo jeedaan Einstein iyo Hitler dalka lagu farsameeyo Mercedes iyo BMW halkani waa dhulka warshadaha iyo makiinadaha iyo awoodda warshadaha mucjisada ee Yurub Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaalkan aan kaga hadlayno Jarmalka haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir muuqaalkan like saar mahadsanid Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka waxay ku taalaa bartamaha Yurub waxaana lagu tiriyaa dawlad dimuqraadi oo u furfuran adduunka oo dhan sidoo kale waxay isu keentaa taariikhda qadiimiga iyo firfircoonida iyo casriyeynta Yurub ee hadda waana mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn uguna awoodda badan dhaqaalaha ee adduunka intaa waxaa dheer waa mid ka mid ah wadamada ugu horumarsan sayniska marka laga fiiriyo dhinacyada casriga iyo hal abuurka waana dal federaal oo midaysan caasimaduna waa Berlin mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Yurub badka dalka Jarmalka waa 357,000 oo kiiloomitir square badkaas waxaa ku jira 114,000 oo kiiloomitir oo square oo keen ah muddo 10 sano Jarmalka waxa uu soo maray marxalado kala duwan sanadii 1871 waxaa la mideeyay guud ahaan Jarmalka waxaana xukunka gacanta loo geliyay Otto von Bismarck sanadii 1914 Jarmalka wuxuu galay dagaalka koowaad ee adduunka kadib 4 sano oo dagaal ah Jarmalka waa lagu jibiyay dagaalka dalkana wuxuu qaatay nidaamka jamhuuriyadda dadkana waxaa ku habsaday niyad jab dhaqaale iyo xaalad murugo leh sanadii 1933 waxaa yimid xukunka dalka Jarmalka hogaamiyihii Naaziga Adolf Hitler si uu u horiyo dagaalkii labaad ee adduunka sanadii 1939 mar labaad Jarmalka waxa uu ku guuldareystay dagaalka Hitlerna gacantiisa ayuu ku soo afjaray noloshiisa Jarmalkana mar kale ayaa la kala qaybiyay galbeedka dalka Jarmalka oo ay gacanta u gashay Mareykanka iyo xulafadiisa iyo bariga dalka Jarmalka oo ay gacanta ku hayeen Sofiyeedka xaalka wuxuu sidan sii ahaa ilaa midoogii labaad uu dhacay sanadii 1990 sanadii 2005 Angela Merkel ayaa noqotay ra'iisul wasaaraha dalka intaa wixii ka dambeeyayna waxay ahayd taariikh aan la tirtiri doonin Jarmalkii galay labadii dagaal ee adduunka ugu waaweynaa oo horiyay dunida oo dhan dabadeed boorka dagaalka ayay iska jafeen si ay u noqdaan mid ka mid ah dhaqaalaha ugu xooggan dunida Jarmalka waxaa ka jira sharciyo layaab badan oo laga yaabo inaadan weligaa maqlin gudaha dalka Jarmalka qofkii saara ama bixiya salaanta Naaziga waxaa lagu ciqaabaa 3 sano oo xarig ah halka kuwa isku daya inay xabsiga ka baxsadaan loola dhaqmo si ka duwan sidii hore baxsigana wax ciqaab ma laha sababtoo ah waxay aaminsan yihiin dadka Jarmalka inay xuriyadu tahay dareen bani aadan kaas oo aan lagu ciqaabi karin qofka Jarmalka oo ay ku nool yihiin 82 milyan oo qof ayaa la ildaran gabowga dadka gabowga ah ee ay shaqayn karin waxay ka badan yihiin dhalinta shaqayn karta waana sababta ay sanad walba u qaabilaan kumanaan qaxooti ah si loo helo dad shaqeeya Jarmalkana uu u sii jiro qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa qorshaha u in ujeedadu tahay ilaalinta Jarmalka haddii dalka Jarmalka uu ku tiirsanaado dadka deegaanka ee asalka ah oo kaliya Jarmalka wuu ka bixi doonaa khariidada caalamka dhanka ciidamada Jarmalka waxay ku jiraan kaalinta 9aad ee qiimeynta adduunka miisaaniyadda ku baxdana waxay gaaraysaa 38 bilyan oo dollar halka askariga Jarmalka uu yahay askariga kaliya ee adduunka loo ogol yahay inuusan qaadan amarada ugu sareeya haddii ay yihiin wax ka baxsan bani aadantinimada malaha midda ugu muhiimsan ee Jarmalka lagu yaqaano waa luqadiisa halka luqadda Jarmalka ay ku hadlaan 4 wadan oo aan ahayn Jarmalka sida Switzerland Luxembourg iyo Austria Jarmalka wuxuu si weyn u maalgeliyaa dhammaan dhinacyada cilmi baarista iyo horumarinta halka dalka uu leeyahay 390 jaamacadood oo heer caalami waxaana sanadkii dhigta jaamacadaha dalka ku dhawaad 3 milyan oo arday halka lagu maalgeliyo waxbarashada dalka Jarmalka ku dhawaad 1 bilyan oo euro sanad walba si loo taageero dhinacyada kala duwan ee aqoontu leedahay Jarmalka waa mid ka mid ah dalalka gawaarida ugu badan soo saara dunida warshadaha gawaarida Jarmalka waxay u taagan yihiin tiirka dhaqaalaha Jarmalka halka Karl Benz u dhashay dalka
Jarmalka lagu tilmaamo inuu yahay hal abuuraha baabuurta casriga ee adduunka. Maanta Jarmalka waxaa ku badan dadka howlgabay, haddana waxaa loo tixgeliyaa Jarmalka inuu ka mid yahay dalalka horumaray. Intaan ayuu ka egyahay muuqaalka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.